Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh kusoo dhawaada Ramaala Cooking Channel meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa idinku salaanta islaamka maanta waxaa halkan inoogu sameynayaa omelette waa ukun iyo qudaar la isku waxeeyey dan waxaan ku darayaa porridge insha Allah marka waan isku dubayaa waxaa halkaas ku diyaarsaday videoga ugu aragtaan waa koosto karoot iyo tomato iyo basal insha Allah basasha iyo yaanyada waan jarjarayaa koostadan waan jarjarayaa karootkan waan hoolayaa marka intaas isku diyaarsado waxaa kaloo aan gaarka ku haystaa laba xabo ukun waxaan kaloo haystaa marka intaas isku jarjaro oo diyaariyo waxaan ku darayaa labada xabo ukun cusbo yar iyo filfil ayaan ku darayaa insha Allah waxaan kaloo sameynayaa porridge waa arki doontaan markaan gaarno insha Allah waxaan ku shiidayaa caano kadibna wixii oo dhan isku qasayaa waan dubaynaa hadduu Rabbi raali ka noqdo haatan waxaan diyaarsanaynaa qudaartii aan jarjaranaynaa insha Allah marka diyaar inoo noqotana waxaan u gudbaynaa porridge-kii kadibna ukunta u gudbaynaa insha Allah la socod wacan haatan qudaartii waa almost waa inoo diyaar waa quraac aad iyo aad runtii u fudud oo maaragtaya qofka hadduu rabo inuu iscaateeyo aad ugu fiican uma baahna inaad maaragtaya rooti ku cuntid iyo kaligiisa ayaa kugu filan enough kugu ah insha Allah aaduna maaragtaya oo u macaan yahay runtii ila soo tijaabiya idinkana insha Allah markuu rabo qofka inuu iscaateeyo ma u baahna yacni bur badan inuu maaragtaya u laasimo burka badan ma fiicna burka sidiisaba caloosha waxa weeye caloosha uma fiicna qudaarta marka saa u samaysid oo wixii oo dhan isku diyaarsid oo isku dubtid iyo wax yar oo shaah ah oo qafiif ah aan caana lahayn oo maaragtaya oo yara kulul hadda ku qaadatid enough ay kugu tahay haata koostadii aan jarjaranaynaa insha Allah wixii dhan dhinaca loo diyaarinayaa waa isku diyaarinaynaa kadibna porridge-ka u gudbaynaa porridge-ka waa porridge-ka maaragtaya bacaha yaryar ku xiran oo maaragtaya almost diyaar waaye porridge-yadaaseeto marka wax badan dib badan uma baahna laakiin marka hore asagaan shiidaynaa oo mashiinka ku shiidaynaa sida uu noqdo sida burkii oo kale daqiiqa uu noqdo markaas ayaa wixii lagu qasayo ku qasaynaa hal bac cunaa ku ridi hal bac cunaa ku shubo mashiinka bacdaaseeto halka bacaha waxaa loogu talagalay hal portion baaquli yacni hal qof marka waa shiidayaa insha Allah asaga wax cusub ah kuma dari doono hadhow ukunta kaliya ku darayaa bas caana yar ku yara qasayaa aan ku yara jilcinayaa aan ku dhigayaa inta yar oo ukuntii wixii kale aan dabkii iga kululaanayo mashiinka ku burburinayaa insha Allah diyaar noqonayaa bas wax kale uma baahna waa sida hadeer daqiiq uu noqday markii hore wuu xabad weynaa daqiiq uu noqday baaqoliga ku shubanaynaa kadibna caanaha lagu darayaa oo maxaa la dhahayaa caanaha ma ahe waa caanaha qumbaha laga sameeyey caano qumba waaye caano qumbahaas aan ku darasanaynaa aan ku qasaynaa because
waana lactose free. caanaha coconut waaye majeeda, lactose free waaye. subagiisana aada u yaryahay, qofka rabo inuu iscaatee runtii aada ugu fiican yahay. faad badan ma ku jiro. insha allah waa loogu talagalay dadka rabo inay weydka iska dhimaan. aada ugu fiican yahay. kaasoo ku qaseynaa, qofkii rabana biyo iskaga qasan karaa, wax dhibaato ah male. in yara ku qaseynaa soo u yara jilco ilaa iyo oo aan ka diyaarsanayna. insha allah waxayna kala dabka sii kululaanayo, kadibna wixii isku dardareena. insha allah la socod wacan. marka waxa aan hadda saasoo uma qasan, waxaan ku dareynaa ukuntii sameyneynaa. ukuntii iyo qudaartii iyo asagaba kulli waa la isku qasayaa. kadibna hal mar aan ku wada shubaneynaa insha allah. kadibna waa in cabaar dabka inuu aada u dheeraanin oo wixii uu yara huuro, si boorjki iyo wixii oo dhan iyo qudaartii iyo dhexda ay bislaadaan. haddii kale wax qeyriinaas ayaa kasoo baxayo. inuu yara huuro waa daboolay. markaad dabooshid dabka ku daysid cabaar yar, wixii wuu bislaanayaa, wuu huurayaa, aada u bislaanayaa. maasha allah wuu kusoo baxayaa. marka insha allah haatan ukuntii qasaneynaa. waxaan ku darayaa ukunta waa 2 xabo ukun, haddaad doonto 3 ka dhigan kartaa. ani 2 xabo isticmaale, 3na waa lagu sameyn karaa. waa ugu sii cuslaan, ugu sii adkaanaya, waa aada isku sii qabanaya marka 3 ka dhigatid. waxaan ku dareynaa hadda filfil madow iyo cusbo yar. wax yar cusbo qiyaastaada, ha iska badinin. qaadada shaaha oo kale iyo in yar oo oo filfil ah ayaa isku dareynaa. waa la isku dhafayaa, intaas la isku qasayaa. dabkeenu wuu daaran yahay, taawadu way kululaatay. insha allah waxaa ku darayaa 1 xabo oo qaadada raashinka olive oil ah. haddaad doontid xataa waxaa ku darsan kartaa saliid qumba ah oo cunada loogu talagalaya jirto, taasna waa ku darsan kartaa. haddaad doontidna saliid olivada. marka ani waxaan joos gareeyay olivada. qumbada waan haystay, waa idin tusi doonaa insha allah. laakiin se xooga yar maantaas igama haynino. waxaan ku darsaday olivada 3 qaado. 1 qaado hadda ku daraa, 2 gadaal ka isticmaaleynaa insha allah. olivada waa extra virgin, waa tan originalka extra virgin taasa ku darsaneynaa insha allah. waata qudaartii diyaar waaye, ukuntii diyaar waaye, boorajkiina waa noo diyaar. waa la isku dhafayaa hadda insha allah. isku qaseynaa hadduu rabbi raali ka noqdo. haddana barteena ku ridaneynaa. barta way kululaatay soo waa diyaar insha allah. marka ku shubo dabka in xoogaa laga yara gaabiyo way aada u dheeryahay. waa deera gaabinayaa. saliida 1 qaado una hadda ku ridayaa. waa extra virgin. qumbahana waa tana. marka labadaba midaad doontida aad ku sameysan kartaa. saliida qumbaha aada qafiif u tahay, waa aada ugu fiican tahay qofka oo rabo inuu weydka iska dhimo. tanna sidoo kale waxba isma dhaamaan labadaba. 1 qaado oo kala waayo oo qaadada raashinka insha allah oo oil ah. kadibna bahashayna ku ridaneynaa insha allah. khalaas waaye soo wixii oo dhan waa boorajkii iyo kulli iyo caanihii iyo ukuntii iyo wixii oo dhan qudaartii way isku jiraan. hadda intaas cuntid wax kale uma baahantihid, walaa rooti walaa nothing. waxa u baahan tahay male.
intaasaba enough kugu ah. Waana macaan maasha allah, waana ku dhargeysaa wallaahi qadada xataa uma baahanaysid. haddana waxaan saaraynaa dabool ayaan saaraynaa wixii iskugu huuro oo maaragtay qudaartii wixii u bislaadaan oo dhexda uu kaga huuro insha allah. dabkana waa loo gaabinayaa marka waxaa idin leeyahay walaalayaal share, comment, like, subscribe-ka insha allah waa xagiina anaga baqiilina sida roobka camal noogu soo daadiyo laagtana insha allah. mar walba waxaan jeclahay inaan waxyaabo qurux badan oo sidaan oo kale ah idin soo gudbiyo. cunadeyna hadeer way karaysaa, saliida qaado kale ku kordhinaya waa aragtaan, hadhowdiitana hal qaado kale, saddexdaasay qaado ay ahaanaysaa insha allah. wax kale laguma daraayo, wax kale ma lagu dari doono insha allah. saddexdaas qaado waa enough bes. waa isku daboolayaa soo u yara huuro, haddana markuu si fiican iskugu dhago kadibna waa rogeynaa, haddana markale sii rogeynaa, dan markuu si fiican labada dhinacba u gaduudo insha allah waa ka saaraynaa hadduu rabbiga raali ka noqdo. haddana waa rogay dhinaci kala karaayo, asagana waa dabooleynaa xoogaa huuro. markuu huuro haddana waa sii rogeynaa. waxaan rabaa labada dhinacba si fiican uu karo, kadibna insha allah waa ka qaadaynaa. wax kaloo aad yacni rooti iyo wax qubus iyo wax kale aad ku cuntid ma u baahanaysid. ma jeedaa qaadada saddexaad waa taa khalaas, wax kale saliida laguma daraayo. marka waa qaleel maasha allah, waa qudaar, waa borotiin, waa every vitamin ka helaysaa maasha allah. koostaa ku jirto, yaanyo ku jirto, basal ku jiro, waxaa ku jiro ukun, boorjo ku jiro, caano, waxyaabo badan oo iskugu tagay, waa nafaqo socoto insha allah. haddana waa sii rogayaa, dhinaca kale u rogayaa soo ma aragtaan. waxaan rabaa dhinaca kale haddana inay karto insha allah. waa aada ugu heli doontaan, waa enjoy garay doontaan hadduu rabbi raali ka noqdo. tijaabiya insha allah. qofkii rabo inuu weydkiisu hoos u dhimo, waxaan kula talinayaa subaxdii intaas ha ku quraacdo. hadduu heli karo wuxuu shiishiitana fine, way fiican tahay. marka aad fruit yar iyo waxaas isku shiishiidatid aroortii aad cabtid iyo boorajka oo kale iyo. marka rootiga waa laga qurux badan yahay, rootiga nafci badan ma laha runtii. iyo canjeeradaba iyo sabaayada waxyaabaha burka oo ka sameysan oo dhan sidaasay kusoo baxay saxankeeni quruxda badnaa maasha allah. dhadhankiisana lagama sheekeyn karo, waa maasha allah maasha allah maasha allah. aada u macaan yahay marka waa wax caloosha diideyni runtii, carabkana aada u macaansanayo. hala tijaabiyo insha allah. wixii comment ahna hoos nagula dhaafo insha allah. haddii aad ka heshaan haddii kaleba nala soo socodsiiya. waxyaabo kaloo kala duwan oo sidaan oo kale insha allah waa soo gelin doonaa. la socdo janalkan waa janalkiini, kor ha loo soo qaada adin dhihi lahaa insha allah. yaan la iska baqiilin, like, commentiga iyo shareka insha allah iyo subscribe-ka. waxaa idinkaga tagi happy meal, mac salaama.